السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا جعل ميل walba aad joogtaan waxaan wax yar ka dhihi doonaa ciyaartii xiisaha badneed ee dhexmartay kooxda kubadda cagta Liverpool iyo kooxda kubadda cagta Chelsea ciyaartaasoo waqti dhow soo dhamaatay ciyaartaas waxay ku dhamaatay eber labada kooxoodba waxay soo bandhigeen ciyaar aad loo jeclaystay laakiinse dadka xiiseeya ciyaaraha waxay isha aad ugu hayeen ciyaaryahanka cusub ee kooxda kubadda cagta Chelsea ay ka dulqaatay kooxda kubadda cagta Arsenal Mudryk kaasoo ay kusoo iibsatay 100 milyan dadka dhan waxay isweydiinayeen Mudryk ma u qalmaa 100 milyan ay kusoo iibsatay kooxda kubadda cagta Chelsea Mudryk oo la keenay qaybtii dambe ee ciyaarta wuxuu soo bandhigay ciyaar aad loo jeclaystay wuxuu sameeyay dhaqaaq fara badan wuxuu abuuray kubado wala oo aysan gool noqonin Mudryk hadii uu sii joogteeyo sida uu hadda wax ku wado wuxuu noqon karaa ciyaaryahan aad cajiib u ah hogaamin kara kooxda kubadda cagta Chelsea Mudryk oo dad badan ay filanayeen inuu caawa ku fashilmi doono horyaalka xiisaha badan ee Premier League wuxuu soo bandhigay ciyaar aad loo jeclaystay waxaan arkaynaa asigoo kubada la dhaqaaqayo baasayo ordaya hadii uu sii joogteeyo sida tan wuxuu hormuud u noqon karaa kooxda kubadda cagta Chelsea oo uu qalmaa 100 milyan ay kusoo iibsatay kooxda kubadda cagta Chelsea waana Maxamed Cabdullaahi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.